wuxuu ku soo qaaday waa aarsadaa iyo cabdiqaydiid baa meel loogu galay niyow cabdiqaydiid gurigiisa in loogu yimaaday waa waxa weeye alla raali geliyey horta adduunka raaligelin baa la qaataa fiiri cawaan markaa tahay aqligu ku horta balanbaluu soo qaaday balanbalna ragga waxa weeye maalin walba oo cabaadaan oo soo baqbaqlay waa la yaqaana adeerkacay xabad buu ka hadlay adeer xabad ka hadlayo adduunye gadoon nacalla shaydaa ku yaal fiiri emir bashiir oo hoos joogu ku socdo inuu naag dhala yahay oo xeer rageed uusan waxba ka aqoon baa kuu sheegaya hadduu cid ku soconayo ciddiisa lagu socdaa laakiin nin raga ninkii xaniyin salaaxanaya ka wad maxaa waxaa ku tilmaami karaa kalaaba hoosna waxay ku joogaan waa la yaqaanaa ayagoo 10 nina oo cayra waxa weeye sawir hal nin inay saartaan ee waxa weeye qol ka soo furtaan ilma adeeryaal ragnimo raggaas xagee ka joogaan eg nin kale sawirkiisa wadanayo balmudii gala biri nin kale sawirkiisa inuu soo qaado saaranayo oo qol inuu ka soo furto war ani wallaahi oo bilaahi oo talaahi magaciina cayr inaa soo qorto baa bahdil loo arkaaniyo eg wallaahi bahdil baa u arkaa inaa magaciina soo qorto waay dad iga liita idinka aaminsana askar baa tihiin daa'uudkaa maaragta hadda u weelinaysaanna waa askar anaa runta idiin sheegay dadka idinka sareeyo eyga waxaa la dhahay lafaa loo tuuraa idinkana ey baa la mid tihiin anaa runta kuu sheegayniyo wallaahi oo bilaahi oo talaahi ey baa la mid tihiin niyo eeyaa lafaha lagu tuuro idinka waxba isma dhaantaan eg cayr baa tahay ugaaskaagii intay ku og tahay fiiri ugaaskaagii guud dad baa u dilay 9 nin baa u dhimatay mareexaan buu ku leeyahay ugaaskaagii baa mareexaan lugaha u dhaqo wallaahi oo bilaahi oo talaahi sawirkiisa halkaa lasoo saari karaa mareexaan buu u duceynaya ilaahay ha ku barakeeyo soo laabo sanadka dambe naag miya naag nacalla hooyadaa ku yaal haye aawo ninka siyaasadda ku mataliyaa wey cabdiraxmaan cabdishakuur wey gacmaha laga jibiyey sida dumarkii maalin walbo waxa weye wiil abgaalo oo xasan sheekh maxamuud baa maalin walba soo dirsado waxaa laleeyahay orod banaanbax asaa lasoo diraya nacalla hooyadaa ku yaal aqli halkaasaa ka taagantaa aniyo firi aqli halkaasaa ka taagantaa waxay isla hadda caynayso waa xasan sheekh maxamuud haye siyaasaddii uu adeegsaday cabdiraxmaan cabdishakuur naag dhalay inaad tahay anaa runta kuu sheegayniyo wallahi halka inaa ka hadla ma rabin sida dumarkii uu hadlay baq nin hoos joogu waxa weye ku soconaya waxaa maxaniye rageedba adeero gacli rag ba idin soo dirdirayo oo waxa weeye raggaasna way goconayaan meygii bay ka goconayaan ilaa haddeer ilaa had emir bashiir muusan qaban wallaahi way dhuusi lahaayeen wallaahi waxay ka goconayaan way idin soo dirayaan maalin walba emir soo caaya qol ka soo furta saas soo dhaha eg way goconayaan niyo tii meygiiba ilaa had idin hayso haddii nilii celiyene naaraha nilka waraabinaya waa ogtihiin waxaa meesha ku sheegataan ma haysaan taariikh cabdiraxmaan cabdishakuur ahayn oo caasho dheer taariikha ahayn inayna hayn waa ogtihiin niyo inaa rag dabada ka gashaan anaa runta idiin sheegay raggaa dabada ka gashayna waa nilka gubiyaa meeg labaaddaa soo fadhiisataanne 4 qofood baa idinka dhan haysataan nacallaa hooyadin ku yaala taariikhna waa ka arladantihiin firi taariikhda waa ka arladantihiin taariikhdiina askar baa aheedeen anaa askar ii aheedeen aryaa caydiidow mud ii gala bal mud ii firi aryaa caydiidow maxaa cunna naclad baa idin shay ciid cunu idin dhihi jiray cayr iyo ciidda firi bahdil magacooda day cayr iyo ciidday ku leeyihiin ciidda waxa weeye waxaa la dhahaa ciidda jawaanada ciidda lagu shubo waxa weeye xabadaha laysaga dhigo weeye ayagana cayr magacooda day nacallaa hooyadii ku yaal war taariikh raggan way ka arladan yihiin taariikhdooda waxay ka haystaan waa galaal inta ugu dambeeyey way u aari waayeen suma wallaahi oo kudhe halyeegooda lagu hordilay ma ka hadleen wuxuu dhaataa 9 nin baa u dilay bak iska dhaaf cabdiraxmaan cabdishakuur waxba ma aha halyeegaagii caawe galaal baa taariikh ka sheegataa adigoo dhani caawe halyeegaagii oo lagugu hor cunay naag dhalay inaad tahay anaa runta kuu sheegayniyo waxaa la xeeriyaa dhaqan baa la xeeriyaa waxba kuu xeeri maayo ilaan dumar baa tahay firi taariikhdiina waa galaalna intuu ku dambeeyey in lagugu hordilay baa waxa weye lacag baa lagu siiyey niyo iska aamus loo afka lagu xiray day in ninkaa lagugu hordilay baa afka lagu xiray lacag baa afka lagugu buuxiyey baa iska aamus lagu yiri ilaan cayr wey waxay waa wagaajo socotee firi wallaahi lacag ninka cayr maanta haddaa lacag u ballan qaado waxa weye ninka walaalkiisu soo dilaya suma wallaahi dhiigoodaa dadkan garaado lagu qaataa firi hadda ninkan saleebaan garaadada qaatay wuu ku qaatay mataqaanaa wallaahi bilaahi Walaal dagaalkii Saleema gurceel afkaa ka bixin bal muud iyo gala niyo muud gala taariikhdaada sheego addoon baa tahay. dadka iga deji Now niyo shut the fuck up. iga deji abti iga deji dhegeysta marka eg ani saleebaan waxba kama sheegaye laakiin dhiigooda bal muud gala dee dhiigooda in garaado lagu qaata idiin sheegaya inay waxaan midgo iyo bakti iyo gole caddi iyo bambaasho inay yihiin baa idiin sheegaya macule fiiri waxaa ma magac baa ilaahay ku dhaarshay
nacallaa hooyadin ku yaal nasabadna noocaa bay ka yihiin nasabad buu ka hadlay wuxuu yidhi sacad sacad maanta haddii laga ag qaado oo waxa weeye haddii maaragtay habargiisa sacad gees laga geeyo maxaa taariikh sheeganaysaa taariikhda dad kula horbaanaysa maxay tahay nin baa hadda soo hor fadhiisanaysaa maxaa ku sheeganaya galaal baa iga dhashay arey askar ba ah maa leedahay arey askar baa nolosheeda soo ahaa jir maa leedahay leebeeda ku dhaashay kunciilo fiiri wax yar jabro inaad gabadha balmuud soo galan qaad iyo u kaadi gabadha hoos u dhigtinayo abti soo qaad abti soo qaad shinaaya la gabadha dhib malaa muud ba iska وراء galaysaa سوقات inaad dad wax شناي ka sheegaynin موجودين سوقات اوكي صعب وراء سهري وقول وجهك bal كان muud gala متقال muud نميو u soo qaad abti u soo qaada gabadhi dhegeysta markii fiiri dadkan dhiigooda garaada lagu qaataa raxaan qaroo lamaante gurceel buu tagay gacan ba xabad uga soo dhacday dhiigoodii baa garaato lagu qaatay maanta waa jenaraal wey wallaahi waa ninkaa jenaraal ku caysimo meeg soo gaabay mar bal maxaa qaldan hadalka nin hadalka baa loo Ayaanka dulqaatay amni maalin hadii awood wadi kala hadleynaa. waa maqlaysaa kun ciilowdi maxaa qaldan dadka انا hoos iga dhigin سو adeerow قاب هيو كان انا سو قاب waa gaabinayaa dee dadki miina ka dhigin maxaa ayagaa qaldan hoos niyow iga maxaa hadal jabrow adiga fiiri adiga hadalkaaga ku soco ciddi kaa soo dhex gasho hoos bii joogtaa ka aada welwel umaadsanta aad iyo aad sida aada umaadsanta bis waa umaadsanta eg nin wax lagu hadlay waayeen meg waa iska soo tufeen laakiin aniga waxaa ku hadlaa leeyahay aniga hadda taariikhdeeda halkaa ka sheeganaya haddaan dhaho wallaahi maantoo dhan meg ma dhigaya intaabaa loo dulqaadan laaya farxaan qaroole muxuu ku qaatay jenaraal yaa isweydiiyey wallaahi dhiig cayruu soo daadiyey buu wuxuu jenaraal ku noqday dadkan waa cawaan niyo wallaahi waa cawaan qaawan ayagiiba isdilayo nasabiyad maxay ka sheeganayaan war maanta sacad baa isdilayo meel ha laguu sheego yaa isdhaa maanta sacad baa istaabtay sacad baa meesha isku dagaala ma jiro ilaa dadka dhiig markay walaalo yihiin oo dhiig uu ka dhexeeyo isma taabtaan niyo way kala laandheereeyaan nin walba gees buu ninku cadaabaa niyo anaa runta الميل idiin هاي sheegay سوق wallahi وراء bal muud gala niyo hooyadan qabashada ka wasi muud naga gala wal usoo qaba dadkaa niyo eg nin walba gees buu ka dagaalamaa xabad ka ridaa sacad firi iskuma soo laabtaan way kala laandheerayaan laakiin ayaga waa cawaan dhashay maalin hore gulca raggi isku dilay waa ayaga firi ayagii baa lakala qabanaya social media dadkoodii baa wallaahi bilaa waxa weye inay kala cararaan doofaarada biyaha la cabayay eg habar gidir baa doofaar biyo la cabtaa lagu caaya yaa la cabiniyo waa dadkan gaajada u dhashay anaa runta idiin sheegay wallaahi wax la xiirinayniyo ma laha ilma adeeryaalow iga dhaaf qoraalka eg habar gidir baa doofaar biyo la cabtaa lagu leeya yaa la cabo waa dadkan aye gurceel baa laga masaafuriyey dhulkoodii baa loogu yimid dad shisheeya ugu yimid aye waa la kala bursaday waa la kala ceeli masaakiintooda kama fikirayaan dadka ku hoos nool dadka deegaanka dega kama fikirayaan waa cawaan moogta waxa waa cayr firi ayaga baa qoryo isugu dhiibay dad shisheeya qoryo isugu dhiibeen naaraha laga waraabiyey ayagii baa isxabadeeyeen ayagii baa isdileen qurun dhalay weyniyo nasibiid maxay ka sheeganayaan marka firi noocaas bay nasibiid ka yihiin qofku markuu walaal yahay uu isla dhashay isma taabtaniyo anaa runteeda sheegay doofaarada dadkaa biyaha la cabaan wallaahi bilaahi tallaa ninka cayr meeshuu kaa taabto nijaas wey 9 jeer iska dhaqa anaa hadda runteeda sheegaya 9 jeer iska dhaqaniyo doofaarku la mid yahay ilaa qof doofaar biyo la cabay muxuu nasibiid ka sheeganaya waa noocaas taariikhdooda aniga kondhob ii ahaayeen niyo hoosteedii ku jireen aniga kabaha ii qaadiyey aryaa ciidiida halkaa maray araa halkaa nacallaa hooyadiin ku yaal waa jareer dhashay wallaahi oo midgaana niyo noloshooda taariikhdooda firi war reerkaas baa reerkaa maanta ku hoos nool yaa aniga igu hoos noolay weligood anaa cunto sii jiray way soo baa aryaa ciidiida wax isii carraa sii jiray ord shaqeeya anaa xabad isaga dhigi jiraniyo aye galaalna waa lagu hordilay oo wax waa ka qaban waayeen way ka hadli waa hal nin oo ka hadlay cayra bal maanta yaa ii sheegi karo qofkaasaa ka hadlay yaa dhihi karo galaal yaa ka hadlay qof ka hadlay ma jiro waa laga wada aamusa dhiigoodii baa dadkan garaado lagu qaataa anaa runtii idiin sheegay hadda adiga haddaa ma aragtay laba nin oo cayra soo dilo jenaraal baa laga dhigayaa wallaahi jenaraal لاندر سو baa laga هردي dhigaya صح waa soo hoorinaya dee muud iska gala ilma adeeryaal muud iska gala anaa soo hoorinaya eg haddaa nin cayra maanta dilo jenaraal baa laga dhigaya aniga dadkan waa dad maataa oo liitaniyo mar walba waxay jecel yihiin dadka ka sareeya inay xagtaan war ani markaan madal meel soo hor fadhiisto kalaabkan waxaa usoo galaa inaan cid ku tufo wallaahi bilaahi tallaahi dad inaan ku tufo horaa isaga socdo laakiin dadkan cuqdad baa dilootaniyo wallaahi bilaahi maalinta arko qol baa nooga furan saacad baa saasa fiiri way gocanayaan ilaa hadda meegii way ka gocanayaan niyo waxbaa ku dambeeya weli dad waaweyn oo meeg soo hor fadhiisa la dhahay oo taariikh sheegay waa meesha ku ceeboobe war taariikh sheegta eg madaxweyne hal madaxweyne ku faanaan waa cabdiqaasim yaa madaxtooyada u diiday yaa isweydiiyey yaa madaxtooyada u diiday wallaahi bacweynaha madaxtooye looga dhigay naclad baa ku dhashay laaba la yiri
aree iisoo dhaweey aree walaalaanaha hooyadaa walaalka ka wasay laabo daarood anaa idin eg waswaaridkiin wasxa qolkaca muudgal bal muudgal hooyadaa daarood ka wasay muudgal naagiyo naagu dhalay dhegeyso meeshan marka digri cambuula isku caysa jareertii daarooda no naga deji nacalada muudgal nacalada dhashay meegaan naagiyo isoos naagu dhikun dhalay ceelow inaad dee muud gala dee soo gaabi dee timirtaada ilaa soo hoori dhehee ninkaan soo gaabinaya daarood hadda hooyadii was niyo ma jooga daaqadaha la saxaayay iska soo daadinayaa muudgala bal daaqadaha la iska soo daadinaya hadalna looma adkeysan karo dad baa shuruudooda la kulaalaya bal muudgala eg ilmaada real muudgala eg cabdiqaasim yaa madaxtooyada u diiday waa ina ciidiid walaahi bilaah laa buu yiri naclad baa ku dhashay madaxtooyada ma soo gelaysid abti dadka muud naga geliya dee ma soo gelaysid madaxtooyada laa buu yiri haye dadka ilaa hadda cuqdadaas baa haysaniyo hal madaxweyne sheegtaan madaxweynahooda markaa soo qaadin waxaa la yidhaha madaxtooyadu maa gasho waa maya haye yaa filada kuu diiday anoo fakin wiil sacada u diidaniyo anaa rutidii cuqdadaas baa ilaa hadda hayso haye wiilka cayr maanta madaxu ku faana haddii la yidhaahdo cabdiqaasim madaxweyne iisoo noqday filida maada galinaa laleeyahay cuqdada halkaas intaasa ugu filan filida maada galin yaa kuu diiday walaalkaa kuu diidaa laleeyahay cayr sacda animaa kuu diiday wallaahi bilaahi talaahi waxaa la yidhi jiingad bacweynaha baa madaxtooyada kuu noqonaysaa la yidhi gal naclad baa ku dhashay ilaa cawaan dhalay baa taa cayraay dadkaa marka nijaaso weyniyo halkaa uga baxayaa waxaa ku soconaya mawduuca usoo laabanaya cunugii yarba halkaa ka hadlay waxa uu intaasa jawaabtiisa uga dhigay ilmaad reyaal oo daaqadaha la iska daadinayna joojiya rag baa shooladooda kulaasheen halilii jawaabo ogolaada adkaysta ilaa xeer rageed waxba kama taqaaniin nin hoos ku socda baa shooladiisa iyo guskiisa salaaxanaysaa everyday baa idin aragnaaniyo 100 ciwaan bay ka daba yaa samaysteen meega wallaahi soo 100 tuurniyo ciwaan meesha ku gacan muudgal hooyadaa meega ka wasi muudgal niyo muud iga gel cunugaa yarkaaniyo dhegeysta markii 100 ciwaan bay ka daba samaysteen emir bashiir naaga dhalay weyniyo rag waa la kaftamaa meeg waa la is hor fadhiistaaniyo laakiin gocashadan maxay tahay gocashadan zaa'idka iyo cuqdadan tirada badan maxay tahay laba reer baa halkaa lagu soo qortay waxa weye la dhahay yaa laan dheeraysan ka hadla eg nin baa soo dhex galay niyo waxa weye si fiican buu uga hadlayay mid baa daaqad iska soo tuur wuxuu ku hadlayay waa la ogaa anigana wuu jawaabay haddii marka ay kusoo laabtaanna waa kusoo laabanaya wax weyn maaha hadda okay waxaa usoo halkaas ka laabanaya dhigaa marka muddiga bal muud galniyo waa kusoo waayeelka maxaa laabanaysaa qaldintina saamii soo abtiri haddee soo ma may may gaabisaa inaadeer ukaade ha soo hooriyo soo barnaamijkana ku soco gaabi barnaamijka ku rahaa barnaamijkana ku socda sida barnaamijka ku soconaya niyo waayeelka meel buu ka gubanayaa niyo maatada ma wax u gale waayeelka muudii galinaadeer meel baa ka gubanaysaa ku jeedaaye horta waxaa usoo laabanaya wacisle iyo daa'uud baa usoo laabanaya bal muud gala wacisle iyo daa'uud horta sidaas u sinnin inaan awal dhex gala maan rabin hadda waxa weye waa iska falanqaynaya sidaysan u sinnin baanan laiska hordhigi karin eg wacisle iyo daa'uud dad siman maaha dad taariikh ka siman maaha dad liibin ka simanna maaha dad wax la qaybsan karo iyo dad wax la qaybsan karin waa aanan soo dhexgelin anaa iyada sheegay daa'uudka aadaa u kala qaanaa wallahi waa cawaan markii dadka xamar joogo way yaqaanaan jasiiradda waxa weye dadka joogo markay loo socdo jasiiro dadka joogo waa daa'uud macawisleyda waa cawaan dhashay wallaahi dumarka iyo ragganiyo uma kala xisaabsano anaa rabtid